diinta qaran ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa maanta galay maalintii afraad waxaana looga hadlayay qaabka ugu fudud ee loo abaari karo dib u heshiisiin sax ah. dhammaan dhinacyadii maanta ka hadlay ayaa siyaabo kala duwan ku cabiray aragtidooda ku aadan arrimaha dib u heshiisiinta qaran. waa u jeedaan dadkan muxuu ka soo wada qayb galay waa dad maqrib iyo maqshib ka yimid oo Soomaali ah looma fiirin qabiil kulli dad badan oo naga aqoon badan oo naga waaya aragsan oo naga karti badan oo Soomaaliya jira laakiin intii markaas la soo qabqabtay oo ay yeertay runtii waxay ahayd dhaqan ka duwan dhaqamadii aan arki jirnay aad baan ugu mahadcelinayna dhaqanka kale oo aan aragnay waxa waaye hawlwadeenada wasaaradda hawadaan laakiin haddana wasiir fadhiya iyo maxaa wasiir ku xigeen wasiir dawlad fadhiya iyo ilaa iyo muxuu ahaayay madaxdii muxuu ahaayay xukuntay wasaaradda oo fadhida oo ilaa iyo bilow ilaa iyo dhamaad la dhameystiraysa runtii waxa way dhaqan ugu aad iyo aad baan maaragtay dareen fiican ii galiyay dadkii baa fahmay waa la igu leeyahay yani all over the body meel ii fayoobay ma jirto dabadeetna waa yaabay dib uu siiyay waa garan waay wuxuu dhishay baad guud ha loo diro middle-ka check-up guud waxaynu ogaanaysaan qofkii khilaafaad ee xalin dib u heshiisiin sameynaya inay mushkiladu ballaaran tahay dhinacyo fara badan leedahay xalinteedu waqti qaadanayso laga yaabo inaanay generationkeena ba ahayn resultiga si loo gaadhay ha lagu sii talagalo laakiin in gogashii la xaadho la sii dhigo hawshii in la sameeyo haddaba maadaama khilaafaadka ka soo shaqaynayay waxaan soo yar koobay oo si bal in hadhowna riboodina lagu soo diro waxaan inta maskaxdayda ilaa xalay ka shaqayso maalin walba wax yar ka qorayay bal waxaan meesha ka soo baxay igu cusub waxyaabo badan qaarkood dadka waxaase malaa geed baan sawray oo kii geedka inoo dhigay jaamaca Gaabisho oo conflict beega oo geed muhiim ah oo lagu xalilo khilaafaadka lagu ogaado bal maxaa horta shayga la isku haystaa yahay wasiirka arrimaha gudaha ayaa ka hadlay aragtida qaar ee ka qaybgalayaasha waxa uu ku tilmaamay kuwa mira dhal ah baa inagii ina qeexay dalahaan iyo dalahaan waa dhibaato aad weyn marka waxaan qabaa in wax ku olaha aad baan ugu mahadnaqayaa dadka khibrada ah oo runtii dhinacyo kala gedisan oo waaweyn ka eegay mushkiladda Soomaalida si wax faahfaahsan u soo jeediyay talooyin wax ku ola keenay idinkuna waa aragnimo kala gedisan aad sheer garayseen si fiican dooda aad uga qaateen arrintan waxaan qabaa arrintan inaysan dhaweyn runtii marka dhab loo hadlayo oo inkastoo hadda muddo dheer Soomaalidu waxaan ay ku soo jirtay Soomaaliduna ay noqon doonto dhawaan dal ku takhasusay khilaafaadka ama tilmaan u noqda oo wax badan ka sheegi kara oo koorsooyin jaamacadeed ka dhigi kara laakiin dalkoodii aan maaragtay aan ku dabaqin khibradaasi awoodda way muuqataa waayo khilaafaadka aad baynu ugu takhasusnay oo nolosheenu qayb weyn ka noqday wareed bixinteenu qayb weyn ka noqday laakiin waxaad moodaa inaynu ka gudbilaanahay weli marka waxaan qabaa inay bilow tahay geediguna uu dheer yahay dhabta marka loo hadlo tanina ay noqon karto hanaankii looga bixi lahaa dhabna in loo wada hadlo waa loo baahan yahay waa la qabaa baadiyow doctor baadiyow in bilowga xalku wuxuu ku xiran yahay markii mushkiladda la abaaro waxayna haya oo aan ka gudubno wixii aan kala xeerinaynay oo dadku si waaqici looga wada hadlo oo wixii dhacay la isla garowsado halka ku jira dabcan wali xasaasiyaadka iyo ilaa la kala boqoyo de meeshii ku jiraan laakiin mushkiladda in la abaaro oo waxa salka laga taabto muhiim bay ahayd aniga ruuxayga waxa ay soo baxay wixii aan filay wax ka weyn oo waxaana dadkii xoog saarayay mushkiladda Soomaalidu waxay xooggeedu waxa weey mid national character dhammaan dhinacyadii ka hadlay waxa ay ka